waxaa jiray nin boqor ah oo meel xukumay ninka boqorka ana wuxuu lahaa nin wasiir ah oo aad u xikmad badan oo mar walba la taliya meel kasta uu aadayo ninkaas uu ka xaysan jiray wax kasta uu sameeyay ninkaas uu ogaan jiray ninkan wasiirka ah mar kasta oo shar dhaco wax balaayo ah dhacdo wuxuu oran jiray khayr insha Allah khayr bay noqonaysaa arinta waa khayr wax kasta oo dhaca wanaag iyo wixii shar kula muuqato wanaag ha muuqato markii wuxuu dhacaan khayr buu oran jiray ninka boqorka marka marar badan buu tajribeeyay hore wax badan oo khayr yiriba buu cabaar u kaashay khayr bay noqotay sidoo sheegay noqotay adeendigi maalin dambe ninkii isagoo waxay yiraahdaan tufaax jarjaranaya oo wax jarjaraya qudaar iyo waxbay dhahan jarjaranaya boqorka iyo faris ka jaray ruf inta hor ruf isii gaf banaanka ku dhacday ninkii dhigi ka socda farti baan isjarabi khayr bi insha Allah khayr way intuu xanaaqay oo carooday far baan noqday dhigana daadanaya khayr baa xaga khayr ku jooga khayrkaaga ma xabsiga dhig yiri ninkan anu bay igu diganaya hal xiro waa igu diganaya anu igu diganaya ninkii xabsiga la markii xabsiga loo sii wada boqorka uu ka tagay buu yiri in la xirana waa khayr insha Allah khayr weeyaduna xabsigiisa xataa waa khayr ninkii cabaar buu xiraa in mudaab iska xiraa boqorku maalintii dambe uu iska baxayo inuu hantin iyo ugaarasho aad u aaday baa la yiraahdaa isagoo ciidankiisa ilaalinay ka dhex baxay oo kaligiisa baa qolo meel wax ku caabudaysa qabsatay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا يا سلام أبو قيمة بدن كدب ما أنت وحنا جوجا المعمول مساجد كماروكا بريسبن دلك أستراليا سيدي أن لسعتي برنامج كهرة فيديو كهري شيخ وحن يعني وكهل لي وحلي أخذ ركعتين وحن جعل يستين أوصل نقول الشيخ هذانا عن برنامج كان أوبن ديجو أو وحكوا يدين إن شاء الله تعالى marka barnaamijkeena waxa uu ku saabsanaan doona waxa la yiraahdo stresska depressionka walwalka ama farxad la'aanta qof kasta uu yaqaan qaabka ay u socon doonto insha Allah taala muhaadaradu waxay noqon doontaa qaybta ugu horeysa insha Allah taala waxa soo qaadan doona qofka muslimka ah qaabka la rabo inuu arko dhibaato markay timaado qaybta labaad insha Allah taala walwalka iyo stresska walbahaarka ba muxuu yahay yani sharaxaadiisa insha Allah taala ka hadli doona qaybta saddexaadna sheekha insha Allah taala waxaan u deyn doonaa inuu ka hadlo daawada iyo xalka iyo waxyaabaha lagu daaweyn karo insha Allah taala sheekh Daawud ku soo dhawow barnaamijka walaalo aad fara badan oo dhowr kun oo qof ah ku daawanaya oo barnaamijkan xiiseynayo jecel inay daawadaan maadaama sheekhuna qof masiibooyinka adduunka ay tira badan yihiin oo qofka laga yaabo in laga soo galo xagga caruurta laga soo galo xagga caafimaadka laga soo galo xagga xoolaha iyo waxyaabo la mid ah oo dhibaatooyinka iska yihiin dhib aad u tiro badan adduunka maanta waxa ka dhacaya islaam ahaan maxaa qaabkee baan laga rabaa inaan u aragno dhibaatooyinka dhacaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أدون كان مركم كنا لنهاي dhibaatooyinku way badanayaan qofka muslimka ah ama muslimiyuna noqonay xataa bini aadamka adduunka ku nool had iyo jeer dhibaatooyinku adduunkan way ku dhacayaan siyaabo kala duwan bayna ugu dhacayaan oo xaqiiqatan yani dhinacyo badan taabanaya waxa laga yaabaa dhibaato inay caafimaadkaaga ku dhacdo waxa caafimaadkii xanuun waxa laga yaabaa dhibaato inay caruurta iyo reerka kaaga dhacdo waxa dhici karta dadka aad jeceshahay waalidka aabaha caruurtaada walaalaha in ajashi ilaahay u timaado dhintaan waxa dhici karta inaad maalkaaga weydo waxa dhici karta intaaba mid ka duwan inay dhacdo idan waxaan u baahanahay maanta insha Allah taala qaybta ugu horeysa barnaamijkan inaynu ogaano oo horta bal maskaxdeena aynu ku ajasmi garayno dhibaatooyinku markay dhacaan ama qofka muslimka ah dhibaatadu ay soo wajahdo sidee baa laga rabaa inuu u fakar ama u arka dhibaatadan wax laga maarmaana marka hore inaynu ogaano adduunkan markaynu ku noolnahay ilaahayna adduunka inugu abuuray dhib kama baxsan kartid ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka wuxuu leeyahay laqad khalaqna al-insana fi kabad
في تعب في شدة في مشقة إنسانك وحن كله أبورني دب adduunku waa test iyo trial waa wax lagu tijaabinayo sidaad u hagaagto idan hadii wuxuu tijaabo yihiina waa imtixaan tijaabo markay timaado imtixaan baa imanaya adduunkan marka inaan u fahamnaa horta aslan wa abadan in qofku uu dib ku dhex jiro kama baxsan kartid waa inaad marka heshaa waaqi ama qaab fiyow oo caafimaad qaba oo u aragta dhibaatooyinka dhacaya ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankan kariimka inuu haysano waa quraan xaqiiqatan daawa ah wax badan qofku markuu ku tadabburo ama dhinacyo badan ka fiirsho wax badan laga faa'iideeyo dajinayana quraanku wuxuu ina barayaa inaan qaabka aynu musiibooyinka iyo dhibaatada adduunka inagu dhacaya qaabkaan u aragno inay noqoto qaab saxsan sidaas darteed baa ilaahay wuxuu ku leeyahay fi suurati al-baqara kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلهي وحير وحا دعي كرت إناد وحا جعشهاي وحا أجعشهاي شر وكوجره وحا دعي كرت إناد وحا نعبتهاي أذوقوا أتكرهاي سينا وحا نكوغو دعان لكن خير كاغو وحا كوجره مركاسا آيات آخر كذا إلهي وحا كويري والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلهي با قرنيا عواقبته إيا أرنتو ماشا أي كل مانيسو وناق إيا سمانبا لكن أذيق بني آدم كاي قرن ميسد قرآن كهداد فيريسو لبا آيادود أيو إلهي قابك نوعنا كشاق آيادا سورة البقرة إيا آيات كرو سورة النساء آيادا سورة البقرة حلادة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون لكن آيادا سورة النساء يذن حلادة عسى أن تكرهوا شيئا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا مركز لبدا آيادات في رسو وحكاغا صوبحيا مفهوم أما فهم عجيب musiibada qofka bini aadamka ku dhacaysa adduunkan inta noolnahay laba nooc bay ugu imaan kartaa inay noqoto musiibo jirkaaga ku dhacda badani ah ama accident gashay xanuun kugu dhacay qof aad jecesho ka dhintay xoolahaagiyood weyday guryahaagiyoo burburay adigoo qaxay waa musiibo jirahan ku taabanaysa tan kalena waa mid ruuxi ah oo nafsada ku dhacaysa qofkii wax kasta haysta uu iska walwalsan yahay ama musiibo adigu keeni karta fakar iyo walwal iyo walbahaar ku dhacday markaad fiiriso aayada hore suuratul baqara ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku sharaxayaa haday musiibadu tahay musiibo jirkaaga ku imaanaysa inay khayr ku tahay مثلا قتالك كالس كتب عليكم القتال وحليدنكو فرل يلي جهادك وهو كره لكم أذو نعيا dagaalku waa inaad baxdo reerkaagi ka tagto hub qaadato adigu wax disho lagu dilo ad soo dhaawacanto waa musiibo badani ah jirkaaga soo dhacaysa ilaahay wuxuu leeyahay asa an takrahu shay'an huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an huwa sharrun lakum adigu waxa laga yaabaa inaad sidaan jeceshahay laakiin khayr ku ahayn aad sidaan jeceshahay shar ku tahay marka aayada hore suuratul baqara waxayna baraysaa haday musiibadu tahay musiibo badani ah oo jirkaaga ku dhacaysa ama maalkaaga waxa laga yaabaa inay khayr ku tahay laakiin adigu aadan ogeyn suuratul nisaa waxay ka hadlaysaa aayadeedu marka reerku isfurayo kala tagayo مثلا cilaaqaadka u dhaxeeya zawjka iyo zawjada markaas ilaahay wuxuu ku yiri yaa aayad horanteed waxa ayyuha alladina aamanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha wala ta'dhuluhunna adandiga aayadu ilaahay wuxuu ku yiri fa in karihtumuhunna فعسى أن تكرهوا شيئا حداد نعذان أو كن نعذو وحلقيها إن ذو حنعبتها كرهستي ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لكن خير بدن إلهي قريه هدي برب لهم فملكوا يمادو وحا مد بدني أمها نوع ما وحا دعيس إن دب روحي أو نقض قفك إصلاح الله والولو حاسكي بقى إديدي نكي بقى إديدي حاسكي بقى فري الله إصلاح الله والولي والبهاري يمادو مركوا بروبلم روحي إلهي وحليه فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا waxa dhici karta inaad adigu nacayso laakiin ilaahay khayr badan u dhinacan galiyo waxa marka muhiim ah inaan ogaano oo aayadu ayna baraysaa musiibadu han noqoto mid ruuxi ah ama han noqoto mid badani ah hadii musiibo ama asiibo kugu dhacdo qofka muslimka ah wuxuu u fakarayaa qaabkan ilaahay u doonayo
عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا سببتم حيتها سببتم حيتها والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلهي با قرانيا لكن إذنكم قران ميسان وحيتها سمركة كتوسيسا الدون كان لبا اختيار باجرة أذوق اختيار بالله الدون يسو إناد وحدورته inaad wax heshaad rabtaa waxa leedahay doorashadaada ilaahayna mid buu wataa isagu ku dooray labada kee soconaya marka kan ilaahay ba soconaya kaagu soconmayo kan ilaahay ba ku khayr badan adiga kaagu waxa laga inuu indha sokaad wax ku eegtay walaahada ba ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka watuu kulaha wa rabbuka yakhluqu ma yashaa wa yakhtar ma kana lahumul khiyara ربك يخلق ما يشاء ويختار إله إسقى وح الله يوحد دون أبورة إسقى الدور توحي دعية ما كان لهم الخيارة ضدك وح خيار أبوكم له إذن إله سبحانه وتعالى وحقوكو دروكو دعية خيرة وحانا كلو مهمة إذن إنا فهمنه إن بدن السلف كمدة سيدهان وحير هذا عسى في القرآن واجبة كلمة عسى هذي القرآن كقصة أرورته عسى هذا القرآن كأرورته وواجب إلهي سبحانه وتعالى واتولها عسى الله أن يتوب عليهم إلهي وحمدن يحي إنه كتوبة أقبله وحير هذا عسى هديت سيد بعد السلف أورنجرين كلمة عسى هديت معده إلهي إسقى إسكو واجبية وواجبة في القرآن هديك سأررت إذن لبدا لنعب آيات لبدا آيات بكلمة دي باكو سأررتي عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم معناه وحوي أدوغوا ودنعيسا لكن حقيقة خير بكوطة أدوغ واد دبسانيسا لكن حقيقة خيركاغا كجيرا واقعنا وو إنا توسي سدا إيدا إذن قفك مسلمka markuu qaabka u fahmo aqeedada noocaasina la yimaado in khayrku yahay wixii Allah ii dooro in anigu wax yar aan u jeeda musiibadan hadda ay hortaagan ay tahay laakiin ka gadaal waxa iman doona awaaqibka aanan garanayn idan waxa ahdaynu bini aadanna wax ku miisaana waa waxa marka in haysta waxa ama ku fiican ama ku xun لكن waxa ka dambeeya ma garanayno walaahada ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun الله سبحانه ما شاء الله شيخنا جزاك الله خير الله سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك كسارو شيخنا ما دام qaabkaas diintu inuu tustay in ay dhici karto wax kasta oo ku dhacay inay khayr tahay haday noqoto family issue haday noqoto financial issue haday noqoto caafimaadka iyo arrimo la xiriira yani adduunkan wax kasta oo lagu siiyo mar un baa laga qaadi doonaa imtixaan ay noqon doontaa marka wax kasta oo ku dhacay hadii ay qaabka hadda aad noo tustay diintu noo fahansiisay in khayr ku tahay laga yaabo dadku waxay aad u jecel yihiin inta badan tusaalooyinka النبي الله إبراهيم عليه السلام سيد هذا أتوارك قصة سورة البقرة كجرت وكلو إليه هاي ربي يتوس ربي أريني كيف تحيي الموتى إله يتوس سبحانه وتعالى إله وكبرياء إنه تسو قابقوا إله النور إله سبحانه وتعالى محوق جوابي أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي مياه الرميسنين إله سبحانه وتعالى إبراهيم محوق جوابي ما إله سبحانه وتعالى وحان ربا qalbigu inuu gudo soo saadarteed marka caadi waxa ah qofka markii wax loo sheego theory ahaan loogu sheego diinta iyo marka hortiisa ka dhacdo waa kala duwan tahay xaga yani xaqiijin indhaha dhacdo macnaheedu dadku aad bay u anfacdaa marka wax tusaale oo arintaas waafaqsan oo maanta waaqiciga taagan ah nolosha dadka ay marayaan ma jirtaa صح haddaad fiiriso quraanka iyo sunnada مثلا waxaan ka arkaynaa tusaalooyin aad u tiro badan oo ina tusaya wixii marka hore markay dhacayaan inay qofka ula muuqdaan inay dib badan yihiin laakiin cawaaqibkooda dambe uu khayr ku jiro wana sida Allah subhanahu wa ta'ala leeyahay asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum مثلا tusaale dhowr haddaan soo qaadano nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo khayru khalqi ilaahi aha magaaladii uu ku dhashay ee ku barbaaray ee uu jeclaa ee maka ahayd baa laga saaray kufaar quraysh baa ka saartay saxaabadiisii baa lagu la dagaalamay waa lagu bahdilay markuu ka baxay banaanka ka istaagsanaa magaalada ka sii baxay ka hijrooday uu hijrooday isagoo waliba dhuumanayo baxay markuu banaanka ka istaagay ayuu dib u soo eegay kaas wuxuu ku yiri wallahi magaalooyinka ilaahay adan kugu jecelahay makay ilaahayna adu kugu jeceliyahay hadii qoomkaagu iyo qoladaadu aysan maanta iga saarteen kaama bixin dan maanta la khasbin oo la iga saarin marna kaama bixin iska joog lah hadaad marka inta kaliya eegto rasuulka sallallahu alayhi wasallam in laga saaro saxaabadiisii lagu bahdilo magaalada ku dhashay laga qaxiyo isagoo dhuumanaya ka baxo waxay u muuqataa qaab unde musiibo ah laakiin wax yar kadib waqti aan aad u fogeyn wuxuu soo noqday isagoo ciidan wata isagoo ciisi ah isagoo iyagii qabsaday isagoo diintii ku xukumay isagoo asnaamtii burburshay isagoo iyagii cafiyay
idan qaybta hore waa musiibo haddaad intaa keliya ku joogsato laakiin waaqaca dambe alla ogyahay khayr weeye kadalika sidaas oo kale waxaa ah nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam wiil yaroo walaalkiisu ahaa dhowr ragoo walaalihiisa u tashaday ceel bay ku rideen in la dilaa la isku dayay ceelkiiba waad garan kartaa musiibo inay noqonayso wiil yar oo ilmo yara walaalihii inta isugu tagaan ceel ku ridaan ceelkii marka lagu riday baa niman la baxeen magaalada inta banaanka la geeyay baa la iibshay sida adoonka iyo inta iga siisanaya adoon ahaan baa nin u soo iibsado gurigiisa geystay naagtii ninka tiri waa ay faraxumay isagoo faraxumayna cirdigiisii iyo sharaftiisii baa la tuhmay xabsi baa la geliyay waxa soo dhan marka uu maraya aad fiiriso waxay u muuqdaan musiibooyinka ugu waaweyn laakiin endigi ama intii u dambeysay maxay noqotay inuu casiiz misra noqdo inuu isagu magaaladii misra dadka ugu badiya ugu taliya ugu talada badan uu ku mid noqdo in walaalihiis ay u yimaadaan iyagoo gacmaha horsanaya ولهذا بإله سبحانه وتعالى وحوله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء هذا في رسمرك وحي أم قنيسة قيبتي ظهر إني مصيبتها لكن أنت ضم بخير وي مصيبة كسر دعنا واسدة قيبتي ظهر وحلا جاية بعدك إني أنت كأركته أقونت هذا إني كولا مقطع وحير سدا سوكله أن آسيا امرأة فرعون إلهي سبحانه وتعالى أولاد مصير وحلا جاية ضد بدنه مركا أين عرور هلين أما قفك أنتو جرسده وصوح دالين إنه مصيبة وأركه لكن إلهي سبحانه وتعالى هوين إذا عرور مصير حكمة إلهية حداد في رسمرك حلقة دير فرعون قبائل أيسان واحد دالين أن أولاد لسين وحكولا مقنسة لباته إلهي سبحانه وتعالى النبي الله موسى وبدو طورتي وهل كان يالي قادتي مركاسا وحيتر عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أن عنقان قادنا وحا لغا يابا إنو أن أنفعه أما أنويل كدغنو عسى أن ينفعنا بيتر إلهي وكو أنفعي يدي بكو هنوني موسى غرغدي كو كوري هنونكي قادتي إلا إلهي سبحانه وتعالى أتلمامي أو لها وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين هذه مركة امرأة فرعون أتفيريسو أو مركي هور إلهي عرور سين لها وحلا يا فرعون سكلسي جوج لهي أهل النار ناهان لها لكن إلهي أولاد دي بك حنمي waxaa looga xanimay si ay Muuse u qaadato gurigeeda u geyso aakhiradeeda dambe u badbaadiyo oo Ilaahay jannada qasri uga dhiso qaybteeda hore marka waxay noqonaysaa mu'lima qaybta dambe laakiin waxay noqonaysaa arin cajiiba Salama kamida markii Abu Salama uu dhintay rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu yimid wuxuu ku yiri xadiiski baa loo sheegay ma min muslimin yusibuhu almusiba qof muslimo ma jirto musiibo ku dhacdo oo yiraahdo wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu amray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha ilaahu iga ajirsi musiibadayda wax ka khayr badanna igu badal Salama waxay tiri yaa ka khayr badan Abu Salama awwal baytin hajar إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتك وجوري رسولك أسوه هجروده نك وجوري أدنى ويوجع عليه ومعامل في عنه وكل رقمي مصيبة وين بيواركيسي إنا إنك استدعى أول رقم السحابي جاها ورقم كافي عن لها إيمانك لها ذاك وجوري سوه هجروده إنا يويسو أدبي مصيبة والله وأنا مصيبة عجيب هذات فيرسو قيبتي هذا هو مؤلمة لكن إذا يقين سند عادي مركي كد عيسنتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم بقول خير خلق الله waxay noqotay inay ummahaat almu'miniin ku biirto in jannadeedu garantii noqoto inay yaani subhanallah Salama kale rasuulku sallallahu alayhi wasallam khayru khalqillahi isawjkiisii noqoto idan markaad qaybteeda hore fiiriso waxay u muuqanaysaa musiiba laakiin qaybta dambe markaad sugto waxay noqonaysaa khayr waxaan ku soo gabagabaynayaa ugu dambaysa midalan khadar nabiyullah khadar alayhi salam iyo markay nabiyullah Musa israaciyeen waxyaalihii ay qabteen waxa kamid ah wiil yar oo ay dileen ilmo yar oo saqiir halka taagan oo qorta laga gooyay waa musiibo qaabka hadda u fiiriso laakiin markii dambe oo ilaahay aayaadka qaybteeda dambe kaga hadlay fasirayay wa amma al-ghulamu fakana abawahu mu'minayn bir wiilkan labadiisa aabihi hooyadiis dad mu'miniina way fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra ilaahay cilmigiisa wuxuu ku sii ogaaday cunugani haduu weynaado jacaylkiisa darti inuu hooyo iyo aabo kufri ku ridayo gaalnimo maxaa ka weyn oo jannada dhaafsiinayo fa arada rabbuka an
إلهي سبحانه فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة إلهي وحود دورتي marka inuu iyaga ugu ka kaxeeyo ugu bedelo mid kale ilmaha yar adweyday oo dhintay oo waliba la dilay waa musiibo laakiin dhinaca dambe markaad fiiriso ilaahay wuxuu ka taxadaray diintoodii iyo islaamnimadoodii iyo aakhiradoodii iyo wixii dhanbe ku waay lahayn idan markaad qisasku waaqica ah oo dhan fiiriso quraanku aad u tiro badan waxa ku soo baxaysa musiibooyinka dhacaya ee dadka ku imaanaya markaad fiiriso qaybteeda hore waa mu'lima annaguna waxaynu arki karnaa oo inoo muuqdo waa inta yarta inta marka aan taaganahay gadaal dambe uma jeedno marka gadaal si uga yeelayna gadaal waxaan ka yeelaynaa wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun إلهي با إلهي با يقانا لكن يديكم ما تقانا مسلم كقفك مسلم كأمركو جاره هير كأمرك عقيديا إنه آمنه مصيبته إن أي وناجو إنه وجه مصيبة وهو إيمان كره حمانتنا إيه وجه خير وهو إيمان كرته ولو البقبان ماي اسمنا الرب شيء هذه مصيبة كل عدنا وحو آمنة يا إن خير أطاي لأن إلهي سبحانه وتعالى إن أبورتي وأنه أين أجينا وحقبة وحي نوشة خير إنه كوو إيمان كرسورة مصيبة مصيبة إنه كوو إيمان كرسورة خيرة إذن خير يا مصيبة وحي كوو دعابة مؤمن كمركا ولو البقلي ماي وحين تاسي إيماني سامركا هيركي رسولك صلى الله عليه وسلم واستاجيو لها عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وحن ليا بيبيري أمرك قفك مؤمنك وحيسو نوا خير haddii shar ku dhacana uu sabra ilaahay khayr buu uga dhigaa hadduu khayr ku dhacana uu ilaahay buu ku mahadiya ilaahay khayr buu uga dhigaa walaysa dhalika illa lilmu'min halka fikradda noocaasa decisionka fahamka noocaasa qofkan mu'minka ahayn malaha gaalku markiiba wax oranayaa say ku dhici kartaa why aniga maxay musiibada igu dhacdaa maalin walba maxaa anigu saan u yeelaa why da badanaysa laakiin mu'minku markuu qofku yahay ajab rasuulku sallallahu alayhi wasallam yiri laana qofka mu'minka wuxuu aaminsan yahay suuradan kaliya hadda socota waxa hadda ku socda inaanu fiirine awaaqibkeeda dambe fiirsho wallahu subhanahu wa ta'ala alam شيخنا إن شاء الله تعالى بارك الله فيك إلهي أكو بركة سبحانه وتعالى شيخ أنت هذا الموتي إن شاء الله تعالى ولا له أفعيسا تسألونك أسوق قادتي وإدتك أي وحكونا دعين ودن أنبياء وبنايا رسول بني آدم كانوا إسكجعليها هي مرة تسأله سؤال بنارية marka ma jiraan aan ku dhibno adoo raali ah ma jiraan yani dad saas oo kale qisooyin kale ku dhaceen oo kutubtu ay qorayaan ma jiraan oo waxa soo kale la kulmay oo inta dhib ku dhacay dhibkii iyagu arkay inuu dhib yahay marka hore to hadhowtiina uu khayr isku bedelay way badan yihiin xaqiiqatan lamana soo koobi karo wax badan baana ama kutubaha lagu qoro ama inagu cawaaqibkeena iyo tajribadeena intaynu noolahay inuu aragne wax badan oo dunidan kamida dadku soo arkay isagoo wax aad u haysatay inay xumaan tahay shar tahay in khayr ku noqoto boqolaal qof ba diyaaradii ay la socdeen ama tobanaan ba ilaada boqolaal ayaan dhihin diyaaradii inta ka daaheen hadhow leeyahay diyaaradii waa dhacday qaar ba gaarigii ay raaci lahayn intuu ka tagay accident galo dadkii ku jiro dhan dhinteen waxyaalo badan oo noocaas ah jira laakiin waxa jirta qiso yar oo rabina ku soo gabagabeeyo oo meelaha qaar lagu wariyo khasab ma aha inay sax tahay inaanay sax ahayn anu saxnimadeeda inay dhacday inaysan dhicin ma xadeyn karo laakiin waa un wax cibrad laga qaadan karo oo qofka muslimka wax ka qaadan karo waxay yiraahdaan waxa jiray nin boqor ah oo meel xukumay ninka boqorka ana wuxuu lahaa nin wasiir ah oo aad u xikmad badan oo mar walba la taliya meel kasta uu aadayo ninkaas uu ka xaysan jiray wax kasta uu sameeyay ninkaas uu ogaan jiray ninkan wasiirka ah mar kasta oo shar dhaco wax balaayo dhacdo wuxuu oran jiray khayr insha Allah khayr bay noqonaysaa arinta waa khayr wax kasta dhaca wanaag iyo wixii shar kula muuqato wanaag ha muuqato marka wuxuu dhacaan khayr buu oran jiray ninka boqorka marka marar badan buu tajribeeyay hore wax badan oo khayr yiri baa buu cabaar u kaashay khayr bay noqotay sidoo sheegay noqotay adeendigi maalin dambe ninkii isagoo waxay yiraahdaan tufaax jarjaranaya oo wax jarjaraya qudaar iyo waxbay dhahan jarjaranaya boqorka iyo faris ka jaray ruf inta hor ruf isi gaf banaanka ku dhacday ninkii dhigi ka socda fartiban is jarabiye khayr bi insha Allah khayr way intuu xanaaqay oo carooday far baan noqday dhigana daadanaya khayr baa ku xaga khayr ku jooga khayrkaaga ma aha xabsiga dhig yiri ninkan anu bay igu dhiganaya hal xiro waa bay igu diganayaaba anigu igu diganaya ninkii xabsiga markii xabsiga loo sii wada boqorka uu ka tagay buu wuxuu yiri in la xirana waa khayr insha Allah khayr way iyaduna xabsigiisa xataa waa khayr ninkii cabaar buu xiraa in mudaab iska xiraa boqorku maalintii dambe uu iska baxayo inuu hantin iyo ugaarasho aad u aaday baa la yiraahdaa
isagoo ciidankiisa ilaalinaya ka dhex baxay oo kaligiisa baa qolo meel wax ku caabudaysa qabsatay dhab xilligaas oo kalena sanadba sanamkooda wax u qalaan qurbaani u qalaan sanadkooda sanamkooda ha sacrifice bay u qalaan ha waqtigeedii baa la gaaray ninkan boqorka xoogaa iska buuran oo caadooda ee dhaqan bay qabteen waxay warkanayna u qalayna sanamkeena waa la kaxeeyay isagii baa loo sheegay waxa sanamka lagu qalayaa Allah ku arursho isagoo baqsan oo gargariirayo meel aadala baa ninkii diinta u qaabilsanaa u geeyeen oo xalay wareedhe sanamkii ninkan u soo qabanna u qalayna buuran ka waran waa baaraya oo kaas uu fiirsho ninka farka go'an tahay ruuxan shaydaanka naga kaxeeyo sanamkeena wax kala go'an looma qalo waa inuu dhan yahay meel ka go'nayn meel u salaayn ninka farba ka go'an iga kaxeeyay si daayir ninka waa la sii daayay sidoo ku soo fakaday isagoo faraxsan oo soo ogaaday ninka wixii uu khayr lahaa fartii go'day inay khayr tahay inay run ahayd inay khayr tahay buu xabsiga ku soo noqday wuxuu ku soo noqday meeshiisii markii uu reesay biro ninka la soo sii daayay ninkii wasiirka maalintan xirkeena uu keenay xirniyo waa uu cudur daartay raalli baad ahaanaysaa niyo raalli ahaw horena waa u arkay inay waxa kala khayr atira khayr wax walba ay khayr aakhirka gadaal ka noqonayaan arintaana hore u arag iyadina haddan soo arkayo sidaas ay ugu dhacday buu yiri waan ku sii daayay shaqadaadina haysa laakiin waxa ku weydiinaya aniga khayr bayba ii ahaydo de farta ay go'do waa la soo sii daayay oo wala qali gaaray farta ay go'day maalinta khayr tiri darteeda la igu soo sii daayay adiga xabsiga marka ku geeyniga khayr baa tiri ilaa maalintiina waa xirayda khayrka aad xabsiga ka heshay muxuu yahay bir wuxuu yiri waxba aan fahmin meel walba anu adan ku raaca maalintii fartu ka go'day hadaadan xiri lahayn waa ku raaci lahaa labadeena nimanku ina qaban lahaayeen sanamka markay adiga ku qabtaan farta ka helaan kana far lahayn hal qalay oran lahayn ana la diri lahaa marka xabsiga aniga laftirkaygu waa ku badbaado khayr buu yahay marka yani waxay ka tusaysaa qisadu wax walba oo qofka bini aadamka ku dhaca waxaynu hadaynu bini aadan nahay ka jaaj garayna ama xukunna fiiska hore wax yar hore dhibayna qabsanay inta hadda taagan laakiin wax ka dambeeya ma eegno ilaahay iyo quraanka iyo diintuna waxay baraysaa wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun wallahu subhanahu wa ta'ala ما شاء الله عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون آيات قيبتا أقودن بيس إلهي بمر والبأوغ إذا كسموا أقودين مر والبحسوس إن شاء الله تعالى هديد واحد بقى الله قرانته إن الله سبحانه وتعالى أقوغيها إن خير كوتا إن كان إذا كنا آذن أقوين إن شاء الله تعالى وحان سميننا شيخا قيبتا هذا ضمبه وحكسوا قادم دونا بإذن الله تعالى نوعية أقويهاي walwalka ama maxaa la dhahaa depressionka ama stresska waxyaabahaas oo dhan buu sheekhu sharaacaya dhibaatadan qaabka u timaado waa sida markii hore dhacahan ugu sheegay dhibka jirkaaga uu ku dhici kara ruuxdaada ku dhici kara marka insha Allah taala nala soco hatta hadii uusan dhib ku haysan la soco ogow mar walba in imtixaanku uu soo socdo dhici karto inuu kugu dhacaan hatta hadaad wax walba haysato dhinac walba imtixaanka laga dhamaysto in ruuxdii dhibka uu ku iman karo asa anta karahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun